gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi cali xaaji xasan oo saxaafadda kula hadlayay kadib markuu ka soo baxay su'aalo lagu weydiinayay xarunta CID da Somaliland haddaba gudoomiyuhu waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay xukuumadda Somaliland isagoo muusano ku tilmaamay inuu baasaboor ajaanib haysto waa sidoo isagoo hadalka u dhigayay isagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale waxa hadaladiisi kamid ahaa alxamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa diin wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad dhamaan inta halkan joogta taageerayaasha xisbiga meel walba jooga bulshada reer Somaliland iyo saxaafadaba waxaan leeyahay salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib waxa la socoteen maanta in looga yeeray oo aniga gaar ahaan la iga yeeray gudoomiyaha xisbiga wadaniga xarunta CID ga waxay ahayd runtii dhacdo cusub gudoomiyaha xisbiga oo looga yeeray dhacdo cusub ay ahayd laakiin anagoo sharciga dabaqayna oo ilaalinayna oo doonayna inaanu muujino inaanu sharciga ilaalinayno ayaanu tagnay aniga iyo musharaxa madaxweynaha waxaanu booqanay goobtii xarunta CID da waxaan halka kala kulnay saraakiishii oo uu sareeyo taliyaha CID da waxaana ay weydiiyeen su'aalo aanu arkay inaanay xaq laygu lahayn oo ay sharci darro tahay waxa kamid ah su'aalo la weydiiyay maxaad saxaafadeydii hadalkii ugu dambeeyay saxaafadda ka hadlay ayaa kamid ahaa waxay u muuqataa ha hadlina maxaa u hadasheen waxaanu saleenahay xisbiyaduna waa dimuqraadi dalkana dastuurka u damaanad qaaday haduu xisbi yahay hay'adu muwaadiniinta yahayba xorriyadda qolka u damaanad qaaday annaguna xisbi ahaan liisan baanu sidanayn hadalno waxay ahayd su'aalaha ay weydiiyeen maxaad u sheegtay madaxweynuhu inaanu shuruudihii dastuurka ku qoraa qaar kamid ah in calaamad su'aal saaran tahay waanu sheegay inaan aaminsanahay inuu haysto oo aan cadeynayo inuu haysto oo aan cadeynayo waanu sheegay iminkana waanu sheegaya arinta noocaasi waxay muujinaysay runtii caga juglayn iyo in xisbiyada loo muujiyo xorriyaddii ay u lahaayeen inay kaga hadlaan waxa qaldan in culays la saaro waxaana diiday xeerarka dalka iyo dastuurka way diideen xeerka xisbiyada iyo ururadu wuxuu tilmaamayaa inaan la caburin karin xisbiyada iyadoo guud ahaan marka horeba dastuurku u damaanad qaaday su'aalaha ay weydiiyeen waxa kamid ahaa oo la yaab leh markan ka hadlayay maxaad u tiri waxa tiri sharci darro hayeelina dayimka baan ku leeyahay dastuurka sharci darro diiday wixii sharciga ka hor yimaada waa null and void waa sharci darro waxba kama jiraan ma waxaad ku dhiirigelinaysaan idinku in sharci darro la aqbalo muwaadiniinta Somaliland iminkaan ku celinaynaa waxay u hoggaansamayaan sharciga dastuurku wuxuu sharciga iyo dastuurka loo hoggaansamo iyo sharciyada islaamka laakiinse in sharci darro ay u la yiraahdo aqbala waa koow oo la yiraahdo maxaa u tiraahdan sharci darro aqbalina sharci darrada aqbalina maxaa u tiraahday su'aalo noocaas ah oo muujinay marka dhamaantood la isku soo wada duubo u muuqanayay in culays lagu saarayo xisbiyada inaanay ka hadal xukuumadda iyo dalba ay leedahay qaladada sharciga galayso iyo dalka siday u gelisay majiira qaldan ee ay sharci tahay ku tumatay haday tahay siyaasad la hadhay haday tahay horumar la hagaastay ayaa la diidayaa ha sheegina waanu sheegaynaa ku cabiitami mayno ma aqbalayno ha hadlina xaq baanu leenahay ninna nagu khasbi karo ninna ugu khasbi karaana ma jiro muwaadiniintuna waxay u leeyihiin xor maanta aanu hadlaynaa baritaanu hadlaynaa saada baanu hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa wixii sharcigu awood noo siiyay waxa u muuqata in aan mar labaadna ku celinaya waxa u muuqata in madaxweynuhu u isticmaalaya ciidamada hab siyaasadeed oo uu oranayo kii ila hadla u yeedha soo xidha su'aalo weydiiya su'aalaha ka baqan xaasha su'aal kasta waa la weydiin karaa ciidamada ammaanka iyo hay'adaha ammaanka waa u hoggaansamayna adigu maalinta lagu yeedho hoggaansami waay waxaan xasuustaa shalayto aan gurigiisa buuse ugu yimi iyadoo ciidamada ammaanka u yeedheen muuse
oo uu qoriyo u yeedhay oo 20 inoo qoriyo sita u yeedhay oo ay gaadh ka hayaan annagu tii yeeli mayno annagu sharcigaanu ilaalinayna wax sharci daraana ka yeeli mayno madaxweyne cid kala toona muwaadiniintan imkaan ku celinaya sharci daro cidna ha ka yeelina bulshada reer Soomaaliya oo dhan baan u sheegayaa waxaan leeyahay sharci daro cidna ha ka yeelina waxa muuqata inay dhibayso xeerarkii iyo shuruucdii la leeyahay dabakha oo ay doonayaan inay soo doonayaan u socdaan war muuse waxaanu leenahay boqortooyo laguma dooran haddaad moodayn boqortooyo lagu doortay dalkan waa dal dimuqraadi ah boqortooyo laguma dooran boqor yiraahda yani waxaan hayga hadlina ayaynu maqli jiray inagu ma baynaan arage dalalka boqoradu haystaan baa ha ka hadlina la oran jiray mala muuse boqortooyo moodi boqortooyo ma dalka Soomaaliland waa dal xor oo dastuurka Soomaaliland ba u damaanad qaaday adigana maalmaha ku hadhay adiga doortay maalmihii ku harsanaa inaad buuq geliso anana buuqaanu kugu caawinayna ama tantiisa Subeer Maxamed Maxamuud Subeer Galeyd wararka iftiin Somali TV Hargeysa